بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa sharaf weyn noo ah isbitaalka Daryeel Foundation inuu halkan ku soo dhaweeyo Dr. Dalmar oo Al-Noor Foundation ka socdo iyo Dr. Fakhruddin oo banaanka nooga yimid oo Pakistan ah. marka aad baan ugu faraxsanahay reer Kismaayo dadka masaakiinta inay halkan indhaha ugu fiiqaan oo waliba iyadoo lacag la'aan ah. haddana waxaan idinku wareejinayaa faahfaahin dheeraan idin siiyo isbitaalka maamulihiisa agaasimaha isbitaalka Dr. Ahmed Dr. Ciro kusoo dhaw Dr. Ciro. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد aad baan maanta ugu faraxsanahay goobtana iskugu nimaanay oo Daryeel General Hospital iyo dhaqaatiirta aadka u mahadsan ee hogaaminayo Professor Dalmar oo nooga yimaaday Muqdisho iyo wafdida la socoto oo Dr. Fakhruddin uu kamid yahay. haddii aan Daryeel General Hospital maanta xafladan aad baan ugu faraxsanahay 400 oo qof oo indhala'aan loogu fiiqayo dhaqaatiirta sharafta la maaragtay ay noogu yimaadeen. waxaa iska kaashaday Al-Noor Foundation oo Professor Dalmar uu horkacayo iyo Daryeel Organization oo iyaduna maaragtay mu'assasa khayri ah iyo Al-Basar Foundation ayaa iska kaashaday. goobtuna waa Kismaayo. waa markii koowaad hadda aan ku qabanna halkan laakiin Professor Dalmar hadda uguma horeynin intaas oo ka hor ayuu qabtay. haddana wuxuu noo ballan qaaday inuu sii wadayo oo dadka reer Kismaayo ee indhaha ka cabanaya hadday noqoto si khayriya haddii kalaba maartay uu sii wadayo. waa guul noo soo hoyatay ramadaanka soo socda haddana insha Allah way dhici doontaa. aad iyo aad baan u soo dhaweynaa professorka iyo wafdidiisa ballaaran. waxaan leenahay dadkaasi iskugu yimaadeen maanta goobtan way ka faa'iideysteen farxadoodana waan la qaybsanaynaa. iminkana waxaan ku soo dhaweynaa Professor Dalmar si uu maartay inoogu sii dhameystir insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo kadibna wafdidiisa ay isku soo dhaweyn doonaan. wassalaamu calaykum. الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساكي وحنوتها فرحات آدي أدوين أنه جوجنا إسبيتالك دريال جنرال هوسبيتال مقالة كسمايو. فرحات داس مهدد وحاسك الإلهي أبود له ونو سورة قلية إن أنا قونتنا يحوق إني وقتنا نبغى فايدين ومدنا الصوماليات كودا كان مقالة كسمايو يقبلنا جبلان ستيت أوف صوماليا. runtii hawshan waxaa iska kaashaday Al-Noor Foundation oo magaalada Muqdisho ka howlgala, Daryeel Foundation oo isbitaalkan sameeyay iyo hay'adda Al-Basar International Foundation oo ay ka socdaan 14 dhakhtar oo ku takhasusay howlaha indhaha. manahan markii ugu horreysay aan nimaadno magaalada Kismaayo. waxaan horay uga fulinay qaliimo samafala isla magaalada Kismaayo isbitaalka Kismaayo University Hospital. hadda ka hor waxaan kaloo qaliimo ka sameynay tuulada Mareere isbitaalka MSF ku yaala halkaas kooli jiray. haddana nasiib wanaag waxaan heshiis la galnay Daryeel Foundation iyo Al-Noor Foundation iyo Al-Basar Foundation oo howlahan ay si joogta uga socon doonaan isbitaalkan haddii la yiraahdo. howlaha oo isku jira baaritaanka indhaha, daaweynta indhaha, muraayadaha aragga oo la siinayo dadka iyo qalliinka indhaha oo ah qalliinka ugu dambeeyo casriga ah oo adduunka laga sameeyo oo loo adeegsanayo makiinada ugu dambeysay oo la yiraahdo Feco. qofkan aan la tolaynin baliina loo gelinayo. howlahaas oo dhan waa lacag la'aan. qofka bukaanka wax qarash oo laga qaadayo ma laha. runtiina hawsha iyo qarashka waa dareemi kartaan lacag baa ku baxday laakiin lacagta waxaa naga kaalmeeyay hay'adda la yiraahdo Lajnat Muslima Afriqiya ama Africa Muslims Agency oo bixisay qarashaadka iyo shaqaalaha oo ayagana waqtigooda ku deeqay oo wax qarash aan qaadanaynin iyo isbitaalka runtiina soo dhaweeyay oo xarunta iyo korontada iyo biyaha maaragtay naga daryeelay. muddada hadda hawshan ay socotay oo bilaabatay 19 bishii koowaad waxaa la baaray iyadoo weli baaritaanka uu socdo 2607 qof. qofkii u baahnaa daawada la siiyey, kii muraayad u baahnaa muraayadaha la siiyey, kii qalliin u baahnaana halkaan ayaa loo diiwaan geliyay. qalliinkii waa socdaa ilaa 40 maalmood soo socotana wuu socon doonaa haddii la yiraahdo. waxaa noo diiwaan gashan 360 qof oo qalliin uu soo baxay. welina waa socotaa diiwaan gelinta oo haddaba saakay 12 qof aan ku darnay. waxaan mar labaad ku celinayaa hawshaas oo dhan waa lacag la'aan. wax qarash oo qofka laga qaadayo ma leh. marka ummadeenna waxaan doonaynaa inay ka faa'iideysato fursaddaas.
oo maaragtay la keeno dadka qofkii u baahan wax ka qabad maantay waxa laga yaabaa berrito in indhihiisa waxba laga qaban karin indhahana sidaan la soconno waa xubinta ugu muhiimsan oo maaragtay qofka bani'aadanka hagta qofkii indhala meel uu tegi karo xataa musqusha ma geli karo wuxuu u baahanayaa qof kale qoyska ka mid ah inuu daryeelo qofkaas wixii bulshada ku kordhin lahaa ama hawl uu qaban lahaa laftigiisa mashquul buu ka noqonayaa marka culays dhaqaale iyo culays bulshadeed iyo mid caafimaad intaba ayay dadku u keenaysaa waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa isbitaalka daryeel General Hospital iyo Daryeel Foundation gudoomiyaheeda Professor Cabdisamed Abikar Xaaji oo isku dubarida hawshan fikraddan iska lahaa annagana nala soo xiriiray waxaan leeyahay ajarkiisa Ilaahay ha siiyo ummadda reer Jubbaland iyo reer Soomaaliya waa ogyihiin hawlahaas ummaddiisa uu qabanayo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa Dr. Axmed Cirro agaasimaha isbitaalka iyo shaqaalihiisa iyo maaragtay waardiyihiisa oo runtii aad iyo aad noo soo dhaweeyay ilaa shalay markaan nimid hawshaana diyaar nooga dhigay waxaan kale u mahad celinayaa maamulka Jubbaland iyo wasaaradda caafimaadka oo runtii na siiyey fasaxii aan uga howlgalayna halkan sidoo kale dadweynaha ku dhaqan gobolka oo ayagana na soo dhaweeyey jaamacadda Kismaayo oo na soo dhaweysay oo qalabka qaarkiis na siisay hay'adda Albasar oo maanta madax u yahay Faqrudiin Dhaqan oo runtii wadankooda ka soo dhoofay hadda usbuuci hore xamar ka shaqaynayay usbuucaana Kismaayo oo runtii waa dareemi kartaan qof ajnabi ah wadanka imaanaya sahal ma ahan cabsida waa badan tahay runtii waa dad muslimiin sideenoo kale waa ay u soo bareereen marka ayagana waxaan leenahay Ilaahay ajarkiisa aadin si hawshaas qabanaysiin isbitaalka Al Noor Foundation iyo shaqaalihiisa oo ayagana heegan u ah mar walba hawlahaas inay qabtaan ayagana waa u mahad celinayaa hawshan ma noqon doonto tii ugu dambeysay waxaan rajaynaynaa isbitaalkan inaan ku soo kordhino qaybta indhaha oo aan u tababarno shaqaale si joogto ah uga howlgala haddii aan baxno iyo haddii aan joognaba annagana waxaan ku imaan doonnaa 3 biloodba mar howlahan oo kale inaan ka qabanno samafalka waxaan kaloo jecelnahay isbitaalkan inaan ku kordhino qayb waxbarasho ah oo tacliimi ah oo aniga maadaama aan ahay gudoomiyaha jaamacadda Banaadir in jaamacaddaas aan halkan ku soo xirnaa iyadana dadka dadweynaha halkan la tababaro aqoonta ayaga aan ku wareejino qalabka aan u keenno si annaga lafteena nalooga maarmo oo shaqadii iyo aqoontii iyo qalabkiiba gobolka isku filnaansho uu ka gaaro haddii la yiraahdo markii ilaahan rajaynaynaa inuu tawfiiqdaas noo waafajiyo dhammaan dadweynaha gobolka aad noo soo dhaweeyay miidiyada oo ka soo qayb gashay dhammaantood waa mahad celinayo billahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan hadda ku soo dhaweynayaa walaalkay Faqrudiin si kelmadaha ku habboon uu yiraahdo asagana Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulil Karim. On behalf of my team and Albasar International Foundation, first of all, I thank the founder and our brother Dr. Abdul Samad, the responsible for this Daryeel General Hospital, and my brother Dr. Abdul Razak Gilmer, the founder and the director of Al Noor Eye Hospital. Alhamdulillah, although this is our first camp in Kismayo from Albasar International Foundation, it is really a great pleasure for here to be among with you. Our objective of coming here from long distance is to serve the brothers of Kismayo, our sisters and our mothers. So inshallah, as we have mentioned, our brothers have already mentioned the objectives of our coming here. So we are serving here and we will make every possible effort to provide this latest art of technology service in this remote area. Although it can not be even thought of doing this sort of service in a remote area of Somalia, but inshallah, with the efforts of our brothers and our organization and our sponsors, Africa Muslims Agency, we are here. And as you see, we have already started the screening of the patient and surgery, and inshallah it will go on for next 2-3 days. So I appeal all my brothers, those who are unable to come, or they can come here to avail these services. Thank you very much, my friends. oo maartay nagara qabsatay haddana waxaan baliyeynaynaa indhaha lii fiigaya hadda diyaar baan u ahay indhaha lii fiigo may xabad keliyaan rabaa haddii inaa lii fiigo waxaa ugu maxadcelinaya maxad weyn baa ugu maxadcelinaya waasada dhakhaatiirtii iyo macal shaqaalihii
وكا وها وباقي حكسوق يبقلان وحالي هذا حوا أحمد جامع سنة كي واسديتن انت هذا كهر إن ده اللي جمع قالين هذا وحنا من دفيقه وإيش بدي مدك يا الله يفيقه يا إلهي إذا كيس وحنا وبقى أنت سولي يفيقه يا علشان لعقت تبرت هذي بنواد marka waxa weeyaan hadda hadii ilaahay haduu dad lacag la'aan noogu shaqeynaya iyo dawladda Jubbaland iska almaysanaysa la noo keenay waa ilaahay maadiis waa ku shukriyeena insha Allah billahi kariin waxaan ku aad dareenkayga ku aadani waxa weeye inaan dareen wanaagsan iyo farxad iyo maxaan ku ilaahay aan muujiyo iyo sidaan u jeclahay maaragtay dadka isha lacag la'aanta ay waqalaya dawladda Jubbaland nabadgelyada nimcada maxaan ku ilaahay ilaahay barwaaqada uu nasiiyay dhalinyarada noo tabcaysa oo maxaan ku ilaahay wararka naga duubaysa iyo meel ay taagan yihiin iyo meel ay joogaan ba kuwa heerka u taagan oo duurarka ku jira kuwa maxaan ku magaalada heerka kaga jira insha Allah billahi kariim waa yeel maani waxaan uga baryayaa wax khayr qaba ilaahay inankiisa la siiyo insha Allah billahi kariim dafiiqad la'aan baan u imaaday walaalay ilaahan ku mahadina hay'adda oo lacag la'aanta nagu fiiqay waa u mahad celinaynaa dhalinyarada waa u mahad celinaynaa Jubbaland waa u mahad celinaynaa khayr in nabad Allah siiyo amaana Allah siiyo cadawga Allah ka qabto khayr in nabad ka baxay matula magacay waa Maryan Cartan Maxamed waxa waa Jubbaland ilaahay ha duureeyo iyo dhalinta oo garabkana hayso iyo ninka qaraayo kubi kore Allah ka dhigo cadawga Allah ha ka qabto ilaahay idinka cadawga Allah ka qabto kubi guuleysteen Allah ka dhigo kubi meel maraan Allah ka dhigo ilaahay idinka Jubbaland gacanta sare Allah ka dhigo ahee gacanta kore inda qafiiqanta alxamdulillah anaga waxa waay waan reesanay maanta lacag la'aan baan ugu qarahay daraad waan kar maalin hore waan ka haray lacag la'aan baan oo ka haray maanta kubi guuleysteen oo meel walba maraan Allah ka dhigo ee damcaanay ma yahay midigta fiiqa ee taasa ibad ee kubi guuleystaan Allah tara Allah noo barbaariyo aayado hayaa